maanta oo maalinta sida gaarka ah adduunka looga xuso arrimaha la xiriira caafimaadka dhimirka si loo hormariyo caafimaadka dhimirka loogana hortago dhibaatooyinka uu leeyahay caafimaadka dhimirku loona caawiyo bulshada la ildaran ama dadka sida khaaska ah ula xanuunsan maxaa la yiraahdaa caafimaad darrada xagga dhimirka ah ayaa maanta oo kale la xusaa la xasuustaa annagana haddaan nahay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan wasaaradda caafimaadka maalintani waa maalin ka duwan maalmaha kaleete sababta ay ugu duwan tahayna waxa waaye runtii dadka waxa laga yaabaa inay dabaaldeg u qaataan laakiin dabaaldeg maahan waa maalin la isku baraarujinayo dhibaato xoog leh oo hadda aan ku dhex jirno xagga caafimaadka dhimirka ah la isku baraarujinayo wax soo socdo ama dhibaato inta ka weyn ay soo socoto haddii la yiraahdo mental health-ga iyo muhiimadda uu noo leeyahay sida uu noo saameynayo wax la soo koobi kara maahan maanta waa maalin wacyigelineed xasuus waaye in maxaa la yiraahdaa dadkaas xanuunadaas la nool aan la istigma lagu sameynin la faquuqin lagana gaaro loona gurmado kuwa hadda xanuunka la nool kuwa uu ku soo socdana ka hortag loo sameeyo intaas ayay maanta qusaysaa in ka sii badan